caasimada Soomaaliya waxaa isku helay shacabkii caraysnaa ee madaxda dawladda federaalka u caraysnaa ee meel ay u maraan la'aa iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre dood kulul ayaa ka dhacday shacab meel ay u maraan la oo dhul baa nalaga dhacayne oo cidda ka dhacday la garanaynin iyo ra'iisul wasaarihii baa fooda istaray oo qol la iskugu xareeyay arba waxa ka dhacday ra'iisul wasaarow dhulkii waxa weeye taytolka lahaa dhulkii sharciyeysnaa dhulkii maqraatiga lahaa dhulkii waxa weeye hebel lahaa dhulkii sidaa lahaa niman baa dhacay xukuumadda ka tirsan ra'iisul wasaarihiina wuxuu leeyahay wasiirka ka dhacay ii sheeg fooda ayaa la isdaray si fiican baa horta waxa weeye magaalada Muqdisho la iskugu qabtay waana arrin fiican run ahaantii oo guul weyn ah mas-uul ka tagay baa ogolaanaya in shacabkiisa intuu hor imaado uu yidhaahdo su'aalo qabliga i weydiiya oo dhinac walba ii xula waxaa kaleeto ayadana la dul istaagay codka waa inii sii dayn doonaaye waxaa la dul istaagay oo ra'iisul wasaaruhu soo qaatay war qaarkood madaxdii waxay leeyihiin buu yidhi 91kii baan intaan meel ku ridnan anagu kaga tagnay inuu kaanagi yahay iyo inuu ku kala yahayba garan mayno oo micnaha waxa weeye isaga ninkan daaroodba ma aha waxaa shika geliyey mas-uuliin ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ee Puntland ayaa marar badan ku soo celceliyey bal arrimahaasoo dhan intaana dul istaagin dooda iyo sida ay u dhignaydna aana qaadadhigin oo aana falanqaynin bal qaybo yar horta oo waxa weeye isweydaarsiga ka mid ah oo ra'iisul wasaaraha naftigiisu uu hadlayo bal wax yar horta aynu wada dhegaysano horta mar eego su-aashan iyo waa too local hay su-aal ra'iisul wasaare maahan maray laakiin qaarkood madaxdoodu soo ayagii lahaa ninkaani waaba waagii 91kii baanu ka cararnay intaan meel ku ridnay kaanagii inuu yahay inuu ku kala yahay ma hubno saayigina madax ra'iisul wasaare saddex dagaalaad hadda ku jirtaan saddex dagaalaad gasheen dagaalkii shabaab la isku ogaa kii Jubbaland gasheen kii shacabkaad gasheen kii mucaaradkaad gasheen afar dagaal baad ku jirtaan afar dagaal see u xalinaysaan ra'iisul wasaare see loo xalinaa afar dagaal see loo xalinaya dhulkii shacabku iska lahaa oo dukumentiga lahaa oo nashqada lahaa oo rajabuudka lahaa oo suburlooga lahaa oo cumar tugumba lahaa oo heshiiska goofle lahaa ayaa la qaatay waxaana qaatay dawladdiina rag ka tirsan oo ganacsato iyo wasiirro ah qaatay ogaas anugu dhulka hadee lagaa dhacay haddii dhul lagaa dhacay raalli kama nihin mana ogin hadday arrintaasi ay tahay arrin sugan waxaad xaq u leedahay dhulkaaga in lagu siiyo dee ciddi kaa dhacday iyo wasiirku yahay maada ii sheegin anigu wasiiradan xukumaayo wasiirka haddaad ii sheegi lahayd berri baan u yeeraya hadduu dhulkaa dhacay waase marnase anigu qeyb kama nihin umana annaan dirin diyaarna uma nihin mana ogolaanayno in qof Soomaaliyeed hantidiis la dhaco ma ogolin waana xaaraan mana banaana taa intaasaan ugaas ayaan kaa leeyahay haddaad ii sheegto wasiirku yahayna waasaan kuu sheegay waan kuu ballan qaadaya berri subax intaan u yeeray inaan oranayo dhulkaas inuu kaaga marka taas waa intaas waayahay intaa markaan kaga soo hadhno caawa oon u gudagalno weliba dooda iyo waxay ku salaysnayd magaalada Muqdisho waxaa la iskugu keenay dad kooban anigu tiradooda garan maayo laakiin hoolku waa buuxay iyo ra'iisul wasaarihii baa horta la iskugu keenay dadkuna magaalada Muqdisho deganna Jaanis bayba ku raadinayaan aragtida ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii maba arki karaaba xataa kuwa siyaasiyiina oo horey xilal u soo qabtay baa ra'iisul wasaaraha oo weliba ra'iisul wasaaraha dadka kuwa ugu dhawaada baa intay soo wacaan waxay dhahay ra'iisul wasaarihii ma aragno ma arki karno telefoon nagama qabto waxa weeye meel aan kala hadalno cid noo geyn karta xataa male waa siyaasiyiin iyo xilal soo qabtay weliba waaweyn soo qabtay weeye caawa laakiin kolley dabcan ra'iisul wasaaraha ogolaaday oo isagaa dalbaday in bal dooda laga doodo arrimahan taagane arrimaha ugu waaweyn ee caawa sida fiican la iskugu korfeeyey ra'iisul wasaaraha weliba lagu taqleeyay luqunta loo geliyey waxaa ka mid ah dhulalka danta guud ee waayaha dambe dawladdu ay ka bixinaysay shacabkii ku noolaa laakiin dad baa usoo tuubaraacayoo hadda odayga hadlaya waad maqlayseen wuxuu yidhi dhul title dhiile oo anigu aan leeyahay oo waxa weeye sharcigiisii iyo maqraatigiisii iyo wixiisii oo dhan uu dhammaystiran yahay
ayaa waxa weeye layga qaato ay iga qaateen buu yidhi rag ganacsato iyo waxa weeye mas-uuliyiina oo xukuumadda ka tirsan baa awood noo sheegtoo naga qaatay buu yidhi dhulkii danta guud ee sharciga lahaa baa la qaadanayaa buu yidhi ku cadday ra-iisul wasaaraha hortiisa ra-iisul wasaaruhuna ma muusan dhex dhigina wuxuu yidhi dhexdaba ma dhigina wuxuu yidhi haddii aad ii sheegta buu yidhi wasiirkaasaa qaatay oo dhulkaadu uu sharci yahay oo sharcigiisa aad haysato wasiiradan xukumaayo beri waan kuu yeedhayaa waan u yeedhayaa baan ka wadaa wasiirkaan u yeedhayaa dhulka wareeji baan leh oo ninkaasaa iskale sii laakiin wuxuu yidhi wasiirka inaad ii sheegtaa ficnaan lahayd oo wasiirka dhulka kaa qaatay aad si fiican ugu sheegto si kastoy noqotoba doodan meelo badan baa la taabtay ra-iisul wasaaruhuna nin ka baqaba su-aalaha ileen maba ahaba nin cabsi ay gelayso ama ka naxaya ama su-aale ay dhibaysaba ma aha walow hadde waxa weeye uu qaarkood aad moodid inuu xoogaa ka yar warwareegay laakiin intii badnayd su-aalaha intii su-aalahii qornayd ee horay loogu qoray ee mawduucuu ku saabsanaa iyo inta kale ee dib looga sheegay ee dib laga soo tuurayba dhammaan wuu ka jawaabay waa laga yaabaa inay su-aalaha qaarkood jawaabtooda iyo sida waxa weye loo rabay inuusan uga jawaabin doodahan marka inta badan waxaa lagu soo qaatay kow dagaalaad ku jirtaan oo argagixisaad kula jirtaan laba dagaal baad ku jirtaan oo puntland baad kula jirtaan saddex dagaal baad ku jirtaan oo shacabkaad kula jirtaan afar dagaal baad ku jirtaanoo war muxuu ahaa yaxad kula jirtaan buu yidhi mucaaradkaad kula jirtaan buu yidhi oo odayga weyn kolley waa iska soo koobtay isaga naftigiisu waa iska soo waxaystay intaba ra-iisul wasaare wuxuu yidhi mid inaan u dul istaagaa ficnaan lahayd laakiin dagaal waxa weeye anagu waxa weeye aan puntland aan gaar oola hadla xaggan aan gaar ooga hadla xaggan aan gaar oola hadla ficnaan mawduuca xalaal aan usoo qaataa ficnaan lahayd buu dabcan waa ka hadlay laakiin sidii la rabay xoogaa waxa weeye qaarkood mawduucana qayb kama hayno waana ka gaabsaday waxaa intaas sii dheer oo iyadana laga hadlay dhulalka danta guud dowladda si weliba faahfaahsan buu ra-iisul wasaaruhu uga jawaabay horeyna waan idiin sheegay dhulku hadduu yahay dan guud dowladda iskale dowladda hadday rabto waxay siinaysaa forina oo waxay siinaysaa dad waxa weeye dibadaha ka imaado soomaaliyeed hadday rabto waxay siinaysaa ajaanib kale siinaysaa hadday rabto waxa weye way iibsanaysaa hadday rabto waxa weeye dhul dan guud bay kasii dhigo waxa weye way hagaajinaysaa hadday rabto waxa weye dad shacabay ku wareejinaysaa oo masaakiin bay u qaybinaysaa hadday rabto nin ganacsadaha bay iska siinaysaa dowladdu dhulka dan guud markuu yahay iyadaa iskale dastuurkaa siinaya sharciyadaa siinaysa xukuumadda joogtaay iyadaa iskale dhulka shacabku ay leeyihiin ee lagu soo maraamarsiiyona laleeyahay dhul shacabbaa la qaatayna dhulka shacabku iyagaa iskale iyagaale shacabku dhulkooda iyagaa u madax banaan ra-iisul wasaaruhuna waad maqlayseen wuxuu yidhi waaba xaaraam lamaba qaadan kara xaaraam weeye buy lamaba qaadan kara buy see lagu qaadan buy oo dhulkaada lagaaga qaadanaya iisoo sheeg buy wasiirka isaga ee dhulka kaa qaatay si kastoy noqotoba maalmahan waxaa taagnaa arrin la xidhiidha dhulkaasi iyo dibadbaxyo annagoo reebel seena looga kicinayaa dhul annagoo reebel seena looga kicinayaa dhul annagoo ilmo libaxsan ka taabtaan dhul 30 sano 40 sano la deganaa oo dadka shacabka ay iska deganaayeen laakiin dan guudaha bay dowladdu u baahatay ka baxa marka la yidhi qoryibaa loo soo babcalaya annagoo reebel seena looga bixinaya waa ummadda soomaaliyeed oo weli aan u bislaanin dowladnimada war dhulka danta guud inagu malihina dowladda iskale dowladda iyadaa la rabaa inay intay caddaysan tiraahdo dhulkaas danta guud wasaare hebel ay lahaan jirtay ha laga baxo hawl baa lagu qabanayaa dowladeed ciddii diidana sanka laga gelinaya maxaa adigu marka dhul dan guuda adigu naftaada ugu diri maxaa adigu dhul dan guuda waxa weeye iskugu taraajin oo la mudaharaadi dhulkii dhannaa ee danta guud ee hadda shacabka laga soo kiciyay 4 sane ugu dambeeyay mid aan lagu mudaharaadin ma jiro markii la mudaharaaday oo la mudaharaaday oo la ordayna ugu dambayn dowladdii bay gacanteeda gashay dhulka isagaha ugu dambayn maxay gashay dowladdii unbay gacanteeda gashay meel laga marinayaa ma jiro adu iswaalwaal orod dibadbax xabadda isku dhig isqaawi waxa weye waddooyinka xidho taageerada ku gub shaqadaada ha kaa xidhanto carruurtaadi waxa weye gaajaha kaaga dhimato dhulka danta guud dowladda iskale maxaa adigu marka kugu dilay maxaa adigu kaa maqan ood u garbordaysaa dhulka dan guud weeye dowladdaana iskale dowladdii lahayd baan ugu baahatay dadku marka waa loo soo tuubaraacayaa qolo mucaarada oo iyo kuwa jidi iyo jahadiida ayaa usoo tuubaraacaya waxaa laleeyahay dowladdii dadkii bay qixinaysaa dowladda dadkii bay barakicinaysaa
dowladda dadkiibay xabad la dhacaysaa markay haddana banaanka iskugu soo baxaan dowladda dadkiibay cuburinaysaa ayagoo caadi u dibadbaxay waa loo soo waryaha adiga waxaa weye waa lagu soo dibadbaxaadan rag baa bariis ka helaya oo usoo waxa weeye ku faraxsan xabadda adiga kugu dhacaysa shafka kaaga dhacayseed isku dhigayso waxa weye xaqdarrada nin baa bariis ka dhex raadinaya oo nafi siyaasadeed ka doonaya maxaa adigu iskugu dhigaysaa marka ood ninkaas bariis ugu raadin adigana isku dili miyaadan adduunyada waxaa weye rajo ka qabin ma iska joogtid dhulka waa dhul danguud dowladda iskale iyadibaa u baahan maxaa adiga kugu dilay oo xabadda iskugu dilaysaa ummadda soomaaliyeed marka weli ma bisla sharciyadiina xoogaa waxaad moodaa inaan la baranin oo qabiilku uu ka tanwanya oo qabiilku xoogaa ka dhex buuxo ra-iisul wasaaraha iyo doodii caawana dood fiican oo ummadda soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxtar u leh oo ilbaxnimo ah oo weliba run ahaantii mas-uuliyiinta kale iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynahana aan jeclaan lahay inay iyaga naftirkooda doodan loo qabto wasaaradaha sidaasoo kale loola xisaabtamo aan jeclaan lahaa weye waa dood wanaagsan bay ahayd faa'iido badan bay ummadda soomaaliyeed ka faa'iiday ra-iisul wasaarahana raggii inuu cuqdad uusan qabin raggii waxaa weeye u gafe xataa qosol buu ugu dhameeye wuxuu yidhi war kuwaabay lahaa buu yidhi meel baan ku ridnay tobankii oo kaanagii inuu yahay ku kale inuu yahay war ooma hayna buu yidhi isagoo weliba qosol ooga baxay si kastaba shacabku aad bay uga farxeen kasoo qayb galay doodaasi iyo sida ay u dhibanayeen naftirkeeda hab fiican bay ahayd isaguna kalsooni buu siiyey oo si kalsooni leh ayuu uga jawaabayay waxaa la rabaa marka inay mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee xilalka haya sidaasoo kaleeto in ay yeelaan inay saasoo kaleeto yeelaan oo mawduuca markaa taagan